saaka subaxnimadii hore waxaa magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland ka bilowday oo dadweynuhu ay u dareereen goobaha codbixinta iyaga oo soo dooran doona madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland ay yeelan doonto ilaa 3 murashax ayaa ku loolamaya jagada madaxtinimada waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo goordhow halkan yimi oo ka codeeyay iyo sidoo kale Muuse Biixi Cabdi oo xisbiga kulmiye ka sharaxan iyo Faysal Cali Waraabe ilaa hadda safafku aad bay u dhaadheer yihiin dadweynuhuna si habsami u codeynayaan inkastoo meela kooban laga soo sheegay arrimo farsamo gudoomiyaha gudida doorashooyinka oo laftigiisu la hadlay VOA goordhow wuxuu sheegay in aanay ahayn arrimaha farsamo kuwo dhibaato weyn ku keenaya codbixinta hase ahaatee ay yihiin tababarka shaqaalaha la siiyey iyo diyaar garowgooda sagal Mustafa Xasan Nuur oo barbarkayga midig taagan iyana waxay ka mid ahayd dadkii saaka goobaha soo mariyay bal ilaa hadda waxyaabo aad soo aragtay waxaag Ismaaciil aad baad u mahadsan tahay sidaynu wada ogsoonnahay guud ahaanba Soomaaliland maanta waxa si rasmi ah uga bilaabmay doorashooyinkii Soomaaliland halkan aynu ku sugannahay waa goobta loo yaqaan guriga shaqaalaha waxaana ka codeeya mas'uuliyiinta iyo dadweyne aad u tiro badan intii aan Ismaaciil oo jidadka soo socday inkastoo ay wadooyinku xidhnaayeen oo baabuurtii la xanibay runtii waxaad arkaysaa ammaanka oo aad loo adkeeyay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira iyagoo lugaynaya oo aad u xiiseynaya inay soo codeeyaan soo doortaan madaxweynaha shanaad ee Soomaaliland yeelan doonto run ahaantii sidaynu safafka ka arkayno dadweynuhu wax astaana ma sitaan lamana kala garanayo xisbiga u codeynayaan balse mid kastaaba wuxuu ku faraxsan yahay oo uu ku soo kacay farxad in uu madaxweynihiisu noqdo ama kuwa codeeya uu guulaysto ay dadkuna jecel yihiin sidaan aragna safafka waa la is ixtiraamaya dadweynaha sida dumarka uurka leh nimanka ama dadka laxaad kala ama haween ha noqdaan ayaa iyagana safafka loogu horeysiinaya Ismaaciilow ilaa hadda waxa codeeyay sidaynu ognahay oo halkan ka codeeyay gudoomiyaha xisbiga macaaridka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyadoo mas'uuliyiinta kalena la sugayo iyo madaxweynaha Soomaaliland oo iman doonaysna waan gartay sidaas asaga sheegtayba goobtan waa goobta inta badan mas'uuliyiinta ka codeeyaan warbaahin kala duwan baa ku sugan hadda murashax baa yimaada marba xilli baa la filayaa in murashax madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi murashaxa xisbiga wacid injineer Faysal Cali Waraabe dhamaantood goobtan waa laga sugayaa halka madaxweyne ku-xigeenada qaarkoodna la sheegay in gobolada qaarkood ay ku sugnaayeen xalayto kale marka guud ahaan doorashadu haatan si habsami ah ay uga socotaa gobolada kala duwan oo aan la hadlay saaka marka laga reebo xilligii hore oo dadku inta badan mararka qaarkood 6 filayeen in safafku ay bilaabmaan qaarba 4 subaxnimo goobta sii tagay marka waad garan kartaa qof 4 subaxnimo goobta tagay oo ilaa haatan taagan safafka oo dhaadheer iyo codeynta oo wili socota marka wixii warara ee ka soo kordhaba waxaad kala socon doontaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo bah kala duwan ay ku sugan yihiin goobaha ay codbixinta ka socoto